Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh, dear brothers and sisters. Welcome to our YouTube channel, Osman Pancher, for studying the English language. Walaalayaal kusoo dhawaada channelkeena Osman Pancher oo aad mar walba ka baran kartaan luqadda Englishka. Maanta waxaan qaadanaynaa casharkeeni 57, gaar ahaan casharkeeni 17 ee buugga New Conceptiga. ka hor inta aan la gaarin casharkeeni 17 ee buugga New Conceptiga, guud ahaana casharkeeni 57, waxaan rabaa sidii caadadayna ahayd inaan ku weydiiyo laba su'aal. labada su'aal aan ku weydiin doonana waxay noqon doonaan sida tan: shandadahaynu waa kafay, shandadaynu waa kafay, halkan ayayna taalaa. shandadaynu waa kafay, halkan ayayna taalaa. su-aasha labaad aan ku weydiin doonaan waxa waaye, saaxiibada dalxiisayaal miya sidoo kale. saaxiibadana dalxiisayaal miya sidoo kale. labada su-aal waxa weeyaan: number 1, shandadahaynu waa kafey, halkan ayay yaalaan. tan labaad, saaxiibadana dalxiisayaal miya sidoo kale, oo question mark la socoto. insha allah isku daya inaad kasoo jawaabtaan oo aad commentiga ugu soo jawaabtaan insha allah. anigana waan idin soo sixi doonaa. wixii aa qaladid dhibaato ma lahan, waad istijaabisay, balse qof ha ka fiirsan insha allah. okay, waxaan u gudagalaynaa casharkeeni 57 guud ahaan luqadda Englishka oo aan baranayno, iyo casharkeeni 17 ee buugga New Conceptiga, First Things Firstiga. waxaan ku qaadanaynaa casharkeeni 17 isbarasho iyo qaar ka mid a shaqooyinka ayaan ku qaadanaynaa. marka waxaan rabnaa inaan si fiican iskula fahanno. iskuna daya please, haddii aad buugga haysatid inaad casharka buug kale ku qortid, haddii aadan haysanina inaad videoga ka qorataan insha allah. marka mar walba inaad qortid waa muhiim, si erayada markaad gacanta ku qoraysid aad u xifdisid. okay, casharka kan waxaa ku sheekaysanayaan Master Jackson iyo Master Richards. waa laba nin. Master Jackson iyo Master Richards waa laba nin oo sheer ah. waxay sheer ku yihiin shaqo. marka rag baa u shaqeeyo iyo dumar. marka xafiisay leeyihiin, xafiiskooda ayaa looga shaqeeyaa. marka Master Jackson ayaa wuxuu shaqaalaha barayaa Master Richards. cashirkeena marka intaas ayuu maanta quseeyaa. ka hor inta aan casharka u gudagelin, waxaan rabaa erayada nagu cusub inaan soo qaadano oo aan fahamno. okay, casharkeena erayada nagu cusub, erayga ugu horeeya maanta kasoo qaadanayna waa erayga employees. kelmadan employees waa shaqaale. employees ayaa leedahay, waa shaqaale. shaqaale oo jamac ah waaye. employees waa shaqaale. shaqaale oo jamac ah weeyaan. marka haddii hal shaqaale uu yahay waxaa leedahay employee. employee waayo esta ayaa waxay ka dhigaysay jamac. employee waa shaqaale. s haddii lagu daro waxay noqonaysaa jamac oo ah shaqaalayaal. employees waa shaqaale badan weeyaan, waa shaqaale. okay, employee waa shaqaale, employees waa shaqaalayaal. markii la dhaho keliya employ, employ waa shaqasiin ama shaqaaleen. sida markaad qof rabtid inaad shaqaalaysid, waxaad isticmaalaysaa erayga employ. employ waa shaqaaleen. markii la dhaho employment, markii la dhahana waxay noqonaysaa shaqo. employment waa shaqo. okay, waxaa kaleentoo jira employer. employer waa loo shaqeeye, waa owner oo kale. owner waa milkiile. employer waa loo shaqeeyaha ama milkiilaha. employer. owner waa milkiile. okay, marka maxaan ka fahmnay eraygeena? waxaan ka fahmnay employee inay tahay shaqaale oo hal ah. haddii s lagu daro la dhaho employees inay tahay shaqaale oo ama shaqaalayaal badan. haddii la dhaho employ, shaqasiin ama shaqaaleyn weeyaan. employer haddii la dhahana waa loo shaqeeye. employer waa loo shaqeeye.
haddii la dhahna employment waa shaqo. intaas waa isla fahmnaan umaleynaa. erayo kaloo la mid ahaa jiraan sida ah work waa shaqo, work waa shaqo, worker haddii la dhahna waa shaqaale, workers shaqaalayaal, owner waa milkiilaha, owner waa milkiilaha, milkiile. waxaa kaloo jira eray kale oo ah oo cashirkeena maanta aan ku arki doono, horena aan usoo aragnay, job ama job. labadaasna shaqo ayaa la yidhaahdaa. marka jobs haddii la dhahno s lagu daran waxay noqonayaan shaqooyin. okay, ereygeena kala maanta qaadanayna waxa weeyaan waa job laftirkeedii waa shaqo, s ku dar jobs waa shaqo, waa shaqooyin. clerk ayaan qaadanaynaa ereygeena kale oo ah clerk waxa weeyaan maxaa la yidhaahdaa waa gacanyare xafiiseed. waa clerk waxaa la yidhahdaa qof xafiiska ka qabta shaqooyin yaryar ka qabta, sida waraaqadaha isku hagaajiya, lacagaha shaqaalaha kale lacagaha siiya ayaa waxaa la yidhaahdaa clerk waa gacanyare iska dheh. marka s ku dar clerks waa gacanyarayaal. marka waxaan u maleynayaa inaan intaas isla fahmnay. erayada kaloo cashirkeena ku jiro dhammaan waa kuwa aan hore kuugu soo sharaxay, kuguma cusba. marka aan fahamna sheekada ama cashirka waxa uu ku saabsan yahay wada sheekaysiga aan fahamno. Master Jackson iyo waxaa ku sheekaysanayaan Master Richards. okay, Master Jackson ayaa hadalkii bilaabaya. waxa uu leeyahay come kaalay and meet la kulan our waa waxeena our employees shaqaalaheena Master Richards. wuxuu leeyahay come kaalay and meet la kulan our employees shaqaalaheena Master Richards. marka waxaad ku bedelan kartaa adiga oo aad dhihi kartaa come kaalay and meet la kulan my mother hooyaday, oo my friend saaxiibkay la kulan. marka come and meet kaalay oo la kulan waaye. sidaa jeceshaa markuu bedelan kartaa. haddii qof marti ay kuu timaado oo aad rabtid inaad waalidkaa bartid waxaad dhihi kartaa come and meet my parents, kaalay oo la kulan waalidiinteeda. marka meelahan oo kale inaad bedelan kartid isku day. okay, marka Master Jackson wuxuu dhahay come kaalay and meet la kulan our employees shaqaalaheena Master Richards. Master Richards ayaa soo booday wuxuu yiri thank you mahadsanid Master Jackson. Master Jackson mahadsanid ayuu yiri. okay, qofkuna waa inaad u mahad celisaa kaala qofkan la kulan hadduu ku dhaho. haddii adiga lagu dhahay waa inaad adigana u mahad celisaa. Master Jackson ayaa haddana wuu waday. Master Richards ayuu waday. wuxuu u geeyay laba ka mid a shaqaalaha. wuxuu yiri this is Miss Gray. shaqaalihi ayaa la barayaa. this is Miss Gray. tani waa Miss Gray. miss horaan usoo sharax in loo isticmaalo miss wax loo isticmaalo haddaad taqaanid commentiga kusoo qor. okay, this is Miss Gray. tani waa Miss Gray ayuu yiri. and this is Miss Taylor. tanina waa Miss Taylor ayuu yiri. labadaas gabdhood waa laba gabdhood oo aan weli la guursan. okay, waa fahamnaa umaleynaa. this is Miss Gray. tani waa Miss Gray ayuu yiri. and this is Miss Taylor. tanina waa Miss Taylor ayuu yiri. Master Richards ayaa soo booday. markaas ayuu wuxuu yiri how do you do oo ah barasho wanaagsan. okay, kadib waa laga waday Master Richards. waxaa loo geeyay Master Richards waa loo waday. waxaa loo geeyay laba kale oo markaan oo lab ah. markii hore labadii hore dhadig ay ahaayeen. markaas ayaa waxaa Master Richards intii la sii waday inta aan labada qof oo labka ah loo geenin oo wadada lagu sii jiro ayuu wuxuu yiri those girls ayuu yiri Master Richards. those kuwa waay horaan usoo baranay. those girls gabdhahaasi are very pretty. aad ayay u qurux badan yihiin. are very pretty aad ayay u qurux badan yihiin. okay, ama aad ayay u fiican yihiin. you can say both. pretty waa qurux. those girls gabdhahaasi are very pretty
aad ayay u qurux badan yihiin ama aad ayay u fiican yihiin. What are their jobs? ayuu yiri maxay tahay shaqooyinkooda. What are maxay yihiin their waa waxooda. Their jobs shaqooyinkooda maxay tahay. Okay, shaqooyinkooda muxuu yahay. Shaqooyinkooda waa maxay. Markaas Mr. Jackson ayaa meesha mar walba ka mas'uul ah oo shaqaalaha kala yaqaano. Markaas ayuu wuxuu yiri their waa la soo gaabiyay they are oo la soo gaabi waayo. Their ayuu yiri kuwaasi waa typists kuwa warqadaha inoo qora oo type-ka garaaca. They are their typists. They are ma dhehaysid waa la soo gaabiyay. Their typists ayaga waa kuwa type-ka garaaca ama warqadaha inoo garaaca oo warqadaha inoo daawaca. Okay, Mr. Jackson ayaa hadalkiisii wata. Labadii nin ayaa markii loo yimid waxaa la yiri this is Mr. Becker and this is Mr. Short. Okay, kelmadahan macno kale leeyihiin laakiin hadda waa magacyo. This is Mr. Becker and this is Mr. Short. wuxuu markuu magac yahan waxaad ku dareemaysaa xarafka ugu hore ayaa weyn. waa isla fahamnaan u maleynayaa. hadda haddii job oo jumlad ku dhex jirto oo jayda lagu weyneeyo, jaydaas job shaqo ma dhehaysid waa magac ay noqonay markaas. laakiin haddii jayda yar tahay oo jumladda ay ku dhex jirto waxa weeyaan maxaa la yiraahdaa waa shaqo. marka ereyga adigoo macno kale u taqaanid haddii xaraf weyn uu ka bilowdo waa inaad fikirtaa oo dhahdaa ereygan ma jumladu ka bilowday waa maya mase jumladu dhaxda aga jiro. haddii uu jumlada ereyga dhaxda aga jiro that means waxa waaye uu xaraf weyn ka bilowdo waxa waaye waa magac. haddii laakiin uu yahay mid joogsi kadib bilowday ama mid jumlada ka bilowday hadduu yahay macnaheedu waxay u taagan tahay in macnaha ereyga sidiisii uu yahay. uu jumladu markii laga bilaabo erey walba xaraf weyn looga bilaabaa ama joogsi kasta kadib xaraf weyn laga bilaabaa. Okay, markaas ayuu wuxuu yiri this is Mr. Becker kani waa Mr. Becker and this is Mr. Short kanina waa Mr. Short. Mr. Richards wuxuu yiri marka how do you do how do you do ayuu yiri oo ah barasho wanaagsan. Mr. Richards markay soo dhaqaaqeen inta aanan qofkii kale la barayo la soo gaarin ayuu intay soo socdeen ayuu wuxuu yiri Mr. Richards ayaa wuxuu yiri they aren't very busy ayaga aad mashquul ma aha. What are their jobs? waa maxay shaqooyinkooda. markaas ayaa Mr. Jackson soo bood wuxuu yiri their clerks. Their clerks ayagu waa gacan yarayaal. They're very lazy. They're very lazy aad ay caajis u yihiin. They're very lazy aad ay caajis u yihiin. labada qof oo madaxdooda ku sheekaysanaan inay shaqadooda ay tahay mid caajis ah. marka Mr. Richards ayaa soo bood wuxuu yiri markii dambe qofkii ugu dambeeya loo yimid markaas wuxuu yiri who is this young man? waa kuma ninkan dhalinta yar. Who is this young man? waa kuma ninkan dhalinta yar. markaas ayaa Mr. Jackson wuxuu yiri this is Jim kani waa Jim. He's our office boy. isagu waa our office boy wiilka xafiiskeena fadhiya. Our office boy wiilka xafiiskeena jooga weeyaan waa wiilka xafiiskeena. that means oo taagan waa wiilka xafiiskeena fadhiya ama wiilka xafiiskeena jooga. Okay, haddaan hal mar ku celiyo Mr. Jackson ayaa hadalka bilaabay wuxuu yiri come and meet our employees Mr. Richards kaalay oo la kulan shaqaalaheena Mr. Richards. Mr. Richards ayaa wuxuu yiri thank you Mr. Jackson waa mahadsan tahay Mr. Jackson ayuu yiri. marka Mr. Jackson waxa uu yiri this is Miss Gray and this is Miss Taylor tanina waa Miss Taylor. Mr. Richards ayaa soo bood wuxuu yiri how do you do barasho wanaagsan. haddana wuxuu yiri Mr. Richards those girls are very pretty gabdhahaasi aad ay u qurux badan yihiin. What are their jobs? waa maxay shaqooyinkooda. Mr. Jackson wuxuu yiri their typists ayaga waa kuwa waraqadaha qora. Mr. Jackson wuxuu yiri this is Mr. Becker and this is Mr. Short
kani waa Mr. Pecker and kanina waa Mr. Short. Markaas ayuu Mr. Richards wuxuu yiri how do you do barasho wanaagsan. Mr. Richards ayaa markii la soo dhaqaaqo wuxuu yiri they aren't very busy. Ayagu aad mashquul ma aha. What are their jobs? Waa maxay shaqooyinkooda? Mr. Jackson ayaa wuxuu yiri they are clerks. Ayagu waa gacan yarayaal. They are very lazy. Aad ay caajis u yihiin. They are very lazy. Aad ay caajis u yihiin. Mr. Richards wuxuu yiri who is this young man? Waa kuma ninkan dhalinta yar? This is Jim. Ayuu yiri Mr. Jackson kani waa Jim. He's our office boy. Waa wiilka xafiiska inoo fadhiya. Waxaan u maleynayaa inaan casharka fahamteen. Anigoo teacher Osman Abdulqaadir Pancher waxaan idin leeyahay. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wa barakaatuh.